ciidamo tiro badan uu hogaaminayo fanaanka Ilka Casaqeysa ayaa xilligan ururka Al-Shabaab kula dagaalamayo gobolka Afdheer iyaga oo jooga jiida hore. Fanaanka Ilka Casaqeysa ayaana wacad ku maray in uu dagaalkan guul ka keeni doono ama uu ku geeriyoon doono. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkayga Maskaxmaal Media, fadlan subscribe taba haddii aad nagala socoto bogga Facebook-gana fadlan like dheh ama follow dheh. aad baad u mahadsan tahay daawada. sii share garay si aan u helno saaxiibo sidaada oo kale u wanaagsan. fanaanka Ilka Casaqeysa oo ku labisana dareyska ciidanka watana hub noocyadiisa kala duwan ayaa markaan u babaxaya gobolka Afdheer isagoo hogaaminaya ciidamo aan tiro yarayn. waxaana xilligan uu dagaal ku dhaxmaraya jiida hore ee dagaalka gobolka Afdheer. ciidanka uu hogaaminaya fanaankan iyo saraakiil kala duwan kuwaasi oo ay kula jiraan ururka Al-Shabaab. fanaanka Ilka Casaqeysa ayaana wacad ku maray in Al-Shabaab ay ka guuleysan doonaan, isagoo sheegay ama nolol ama geeri in midkood uu halkaasi ku soo heli doono. fanaanka Ilka Casaqeysa oo lagu yaqaano inuu ku luuqeeyo heesaha raabka weliba kuwooda hanjabaada ayaa markaan ka dhabeeyay isagoo saakay u kicitimay in halkaasi uu kula dagaalamo ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo 70 kilomitir gudaha u galay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. waxaana halkaasi xilligan uu ku dhaxmaraya ciidamada dowlad deegaanka iyo sidoo kale ururka Al-Shabaab dagaal aad u xoogan kaasi oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo leh dhimasho iyo dhaawac. fanaanka Ilka Casaqeysa ayaana bartiisa Facebook-ga waxa uu ku soo qoray aniga iyo Shacayb Sayid Xuseen iyo Korneel Nuur Luhubo iyo Generaal Maxamed ciidan aan hogaaminayna ayaa haatan soo gaaray ayuu yiri magaalada Goday Gacallo. waxaana uu sii raaciyay fariintiisa ama geeri ama guul oo ula jeedo inuu dagaalkaasi ku shahiidi doono ama inuu halkaasi guul weyn ka keeni doono. ururka Al-Shabaab ayaa weeraro kala duwan ku qaaday deegaano ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya maalinnimadii shalay ahayd. wixii ka dambeeyay shalay xalay ilaa iyo maantana waxa ay halkaasi ka socda dagaalo kala duwan oo goosgoos fanaanka Ilka Casaqeysa ayaana markaana bootadii ku aadanayd fanka iyo raabka waxa uu digirogtay inuu markaana ka barbar dagaalamo ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab. fanaanka Ilka Casaqeysa ayaana bishii ugu dambeysay waxa uu nagi ku ahaa dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya isagoo booqanayay magaalooyin kala duwan. maalinnimadii shalay ahayd ayuu sheegay inuu aad ugu xun yahay go'aan uu ka qaadan doono in uu halkaasi u raaco ciidamada dagaalka jiida hore ku biiraya. fanaanka Ilka Casaqeysa ayaa xilliganba jooga sida wararka qaar ay sheegayaan jiida hore ee dagaalka isagoo xilligan ka barbar dagaalamaya ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab. fadlan wixii ku soo kordha halkan ayaad ka heli kartaa. sii share garay oo la wadaag saaxiibadaada. haddii aad nagala socoto barta YouTube-ka Maskaxmaal Media, fadlan subscribe taba oo sii share garay. haddii aad nagala socoto bogga Facebook-gana fadlan like taba ama follow dheh u sii share garay saaxiibadaada kala duwan si aan mar walba u gaarsiino xog, si aan u helno saaxiibo u qalbi wanaagsan sida adigoo kale. aad baad u mahadsan tahay daawade la socodka mar walba muuqaaladeena.